deegaan ka buuxo deegaan ka buuxo adiga degmada wuxuu oo waxnoo sheegay inaanay haba yaraatee wasiir iman uu laakiin degmada buuxo li agaarkeeda ka warhayo dawooyin soo gaarsiin laakiin uu yiro aad kaaga caawinaysa waa sax weeyaan in fact ambalaastina waxa sheegay inaanay arag meel ay marayso in fact waxa weeye anuu shakhsi baan meel kasta oo dalka ma tagi karo laakiin wasaaraddu meel walba way gaadhay warward waxa weeye maalintii xanuunku ku dhacay ee laga soo sheegay gurmud baanu galay agaasimihii guud waa kan daawooyin aad u tiro badan iyo 5 dhakhtar oo ilaa hadda ku maqan ayaan u diray buuhoodle waxaan waqti badan u gelinay buuhoodle dad ku dhow 4500 baa xanuun ku soo dhacay oo 500 baa maalintii la keenayay dhimashaduna way ku badnayd marka arrimo kale oo iyada laftigeedu dabada naga wadana way jirtay oo ah inaan dadkan tusno Soomaaliland ahaan inaanu nahay dadkoodii iyo dalkoodii masiibo aad u weyn ba ku dhacday warward iyo meesha la yiraahdo goljanno qorolugud balidhiig xaaji saalax ruqsi intaba xanuunku ku dhacay taleex intaba waa noo gurman marka waxaan maleynayaa warward waxa ka maqan tagisteydana waan tegi doonaa أنا مقعد يا حبيبي حسن كان صعود تلفزيون كارسا xarunta caafimaadka gobolka Saraar waxay ka tirsan hoostimaada gobolkan Togdheer isduwahan baana maamula muddo bil gudaheeda maamulaha caafimaadka gobolka Saraar xilka waa loo dhibay xilkana waa laga qaaday dadka deegaanku eedeymo badan bay jeedinayeen adiga iyo wasiirka Maxamed Xaashi ku jeedinayeen sidoo kale waxa jira sababo soo baxayo leeyahay talow ma hogaamiye xisbiga wadaniga oo meesha ka joojiyay awgiba laga qaaday xilka maxaa sababta xilka laga qaaday ma noo sheegi kartaa okay horta aad baad mahadsantahay su'aasha waa u baahnaa in la weydiiyo waxa weeye horta xirsi wuxuu ka tirsan yahay xisbiga wadani wax xiriiro aniga Maxamed Xaashi iyo xirsi ka dhaxeeyana ma jiro laba xisbi baan kala nahay qof shaqaale ah oo xirsi isagoo amaawir fulinaya u diiday dhakhtarkana kama aanan erin waa sheeko beena iyo dacaayad lamana erin ninkaas waa district medical officer waa xilkii loo magacaabay welina wuu hayaa gobolka Saraar waa gobol waxaan u magacaabay isduwaha caafimaadka isagu degmadu ahaa gobolkuna kama tirsana gobolka Togdheer xarunta caafimaadka ee Togdheer aynabo program ka socda baa hoos yimaada isduwaha laakiin gobol ahaan markii horena sool buu ka tirsanaan jiray iminkana waa gobolka Saraar isduwanan u magacaabay ninkii hore ee la magacaabayna wuu joogaa ee lama erin shaqadiisuna waa hayaa ahayd inuu yahay madaxa caafimaadka degmada waxaan magacaabnay nin ah madaxa caafimaadka gobolka oo reer Saraar ay u baahnaayeen aadna waa mahadsantahay qaarkood ayaan waxaanay lahayn ambulance inta badanna waxay shaashada ka daawadaan wasiir Samsom Cabdi Aadan ku wareejinaysa ambalaasyo oo deegaano ka tirsan gobolada galbeedka lagu wareejiyo maxaa sababay in deegaanada gobolka Togdheer degmooyinkooda oo qaarkood degmooyin waaweyn yihiin ay ambalaas ay laayihiin wali okay xabiibow waxa weeye dalkeena resourcekiisu aad buu limited u yahay wasaaradda markaan la wareegay 17 ambalaas baa dalku dhan yaalay maanta waxaan leeyahay gobolka Togdheer toban way ka badan tahay sagaal baa yaalay maqas wasaaradda markii la yidhiibay 17 baa yaalay dalkoo dhan iminkana gobolka Togdheer sagaal baa yaalay meelaha muhiimka way noo calaamsiinay sida degdega ugu baahan ambalaaska dawladuna ama wasiir Samsom ha noqoto ama madaxweynaha ha ahaado ama aniga ha ahaadee waxa dhamaantii naga go'an in meel kasta oo loo awoodo ambalaas la geeyo waayo ambalaaska waxa ugu muhiimsan iminka maanta wuxuu marayaa ambalaasyada dalku waxa marayaan 17 aan ugu weyn insha Allah wanu sii kordhin doonaa laakiin ma siyaasadeysna ambalaasyadu gobolka Togdheer wuxuu yahay goboladii gacanta dawladana aad bay tahay waa sax adiga socodkaaga kuma badnaa
gobolka togdheer gaar ahaan degmadiisa burco ama caasimadiisa hadle maanta ma kormeer keliya ahaydeen mise wax gargaara oo sideen dadkan xanuunada lagula tacaalo horta gobolka togdheer waa runtaa xanuunada aad bay ugu badnaayeen abaarta meelahay abaartu sida xun u heshaba ka mid ah xanuunadana waxaa keenay abaaraha wasaarad ahaanna waxba kama aanan hagran wixii aanu awood lahaynna gobollada bariga ayaan isugu geynay siiba gobolka togdheer iyo gobolka sool oo isna nambar 2giisa ahaa xagga xanuunada wuxuu ninkii jiray yidhi hayna waa iga intaa hagarana waa iga wallaahi waxba kalama aanan harin burcana ninkii aniga wakiilka iiga ahaa gobolkan baa joogo isduwihiya oo aan fadhiisan oo ilaa iyo buuhoodlay waxaa weeye isduwihii ugu horreeyey ee gobolkan soo mara 27 sano Soomaaliland jirtay ee buuhood la tegey waxaana geeyey wadaninimo iyo damqasho uu ka damqaday dadkiisa xanuunsanaya isaga laftiisa shuban biyood ku dhac sidoo dadka u dhaxoreegay dadka buko u dhaxoreegay waxay ku yimaadeen unde qaylo dhaantayadii waad ogeydo iyagoo niman halkan aanu ku xakamaynay xarunka iskuulkan intaan dadkii ardayda ka fasaxnay marka way jirtaa wax badan inuu tabaynaa ilaahay baa inoo keeni doonaa laakiin wixii aan awood lahayn dhimasho waxaad ka garan kartaa xarunka sidoo inoogu dhacay iyo sida dhimashadu u yartahay waa un dadaalka iyo ilaahay oo inagu gargaaray aad baa u mahadsantahay